labadii kun iyo 12 bishii 19 salaada cishaa annagoo ka soo baxnay baa walaalkay aadan halka lagu dilay dablay hubaysan baa dishay oo dadkii gaalka ay dadka lagu leeyahay kamid ah nin ganacsada caaqilna ah oo la yaqaan oo dadkoo dhan ama Soomaalidu ama gobolka waxa ku nool baa yaqaanaan baaritaanka bacdi markii Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax markii la dilay ninkii dilay baa nimankii dilay xogtoodina si Cabdicasiis bile wuxuu yiri nimankaasi gurigaas ay deganaayeen 4 nin bay ahaayeen nimanka magacyadoodii uu siiyay biliiskii Puntland si fiican bay noola shaqeeyeen hawshii way socotay maxkamaddii darajada koowaad baa la saaray dil bay ku xukuntay markay dil ku xukuntay rafaan bay qaateen bil rafaan ay qaateen bishii rafaanka ahayd markay u dhamaatayna maxkamaddii dambena dil bay ku xukuntay ayagoo u harsan tahay saxiixa madaxweynaha kaliya baa in Cali Gaas uu diiday inuu saxiixo nimankii dambiilayaasha oo dilka uu ku cadyahay maxkamadda inay xukumeen in dilka lagu fuliyo diiday waxaana kala ka shaqeeyay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisa ay Cawad iyo ragay ku jiraan iyo nin hadda dhintay oo wasiirka xigeenka caafimaadka ahaa hawshaas in Gaas anagu waa ka kulanay wax badan buu aad noo canaaday ilaa haddana sidii bay u taagan tahay waxaan tusaynaa Soomaalida beesha caalamka in dadkiina laayay oo noocaas ah iyagoo dilka lagu xukumay maxkamadda isku raaceen in la fulin waayay marka hadday dhici weydana waxaan meesha joogin iyo isku dhac qabiilin oo ka imaanayo dadka iyaga dilay waan naqaana in Cali Gaas waxa lagu yiraahdo ama tawfiiq dooro ama wiilasha dilka in lagu qaado dooro hadda waxa weeye dadka madaxda u ahaa hadday dooranayaan ayagu haddii degmooyinka Soomaalida la isku bedelayo la leeyahay dadka dilkiisa lagu dibay waa wax meesha ku jira oo aan aad uga xunahay waxaan doonaynaa nimankaas dilkii maxkamaduhu ku xukumeen sida ugu dhaqsaha badan in loogu fuliyo haddii kale wixii meesha ka yimaada in Cali Gaas baa qaadaya dambigeeda iyo Cawad oo hadda ah xildhibaan taas intay hawshu socotay aniga 9 xabadood baa igu dhacday 2013 bishii 3 anigoo meel iska mariyo masaajidka laftigiisa ka soo baxay baa wadada la istaagay 9 xabadood baa igu dhacday nin kale oo baa ninkii aniga xabsaasta igu dhuftay oo boolis ah baa xabada ku dhuftay ninkii baraxlay uu galay waa la soo qabtay Puntland baa loo dhiibay waxay keeneen isbitaalada cadda waa lagu kabay ninkii waan u tagay waa la ii diiday in wax lagu xukumo waa la diiday xaqaygeena laygama siin aabihiis iyo dadkoodii baan la xiriiray oo reer Muqdisho oo mursada ay isku cid yihiin madaxweyne ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre markii la doortay si aad aan ugu farxay asagoo yiri anigu shacabka iyo dadka ay doortay cadaalad baan ku shaqeynaa anigu waxaan ahay dadka dibta loo geystay 9 xabadood ku dhacday xaqoodii doonaya geed dheer iyo gaad gaaban baa u fuulay walaalkay waa la dilay nimankii dilay iyagoo xukuman baa xukunkii la diiday in lagu fuliyo marka madaxweynaha cusub oo madaxweyne Farmaajo oo Ilaahay noo keenay oo anigu shacabka baahidooda iyo hawshooda aan la qabayaa iyo ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre waxaan ahay anigu ninka dhibanaha oo walaalkiis la dilay asagana ay 9 xabadood ku dhacday dawladda iyada cusub oo noo dhalatay waxaan doonayaa xaq aan leeyahay iyo xaqi walaalkayba inaan helo walaalka aadan isagu wuxuu ka shaqeyn jiray maxaa lagu ugaarsanay maana qabiil baa loo dilay maari siyaasadeed baa lagu dilay Malaysia beeladiya dilay yaa ka dambeeyay dilka dadka soo qabateen yay noqdeen dadka la soo qabatay waxay ahaayeen ururka Al-Shabaab bay ahaayeen 4 nin bay ahaayeen 4 nin laba waa la hayaa waa labada la xukumay waxa la yiraahdaa Cawil Cali Faarax Cabdifataax Cabdullaahi Yuusuf midna waliba magaciisa xarakiga waxa la yiraahdaa Dr. Caaf ninka kalena Cawil baa la yaa niman la yaqaan waxa weeye hadda ilaa 3 sano bay xiran yihiin waa nimankii gacanta lahaa weeye waa ka nin Cabdixafiid la yiraahdo waa maqan yahay oo saasa lagu xukumay nin kalena waxa la yiraahdaa Shaqala la yiraahdaa waa nin dhul baanta oo barkada weeye
labadaas kaloo maqanay marka nimankii madaxda ahaa ee howlgalka fududeynayay iyo amarada bixiyeyba may afartan waa afartan oo gacanta fulisay weeye gacanta wada lahayd oo gacanta fulisay weeye waa ka amarka ninkii lahaa waa la sheegay Ismaaciil baa la yiraahdaa asaga waa gaar anagu xogtii waxaan ka helay ninkii Cabdicasiis Bilal la oran jiray oo Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax Garow ku dilay masaajidka dhexdiisa baan helay wuxuu yiri waa isku guri baan deganayn waan aqaanay nimanka dilay ugaaska aadan nin ganacsada buu ahaa oo la yaqaan oo caaqil ah gobolka Mudugna caan ka ah Soomaaliduna ay aad u taqaano isaga aadan intaan la dilin ka hor wax ay ku ugaarsanayaan oo ku beegsanayaan ma sheegeen ma la soo xiriireen dabcan sidaan ognahay gaalkacyo iyo magaalooyinka dalku ka dhacaan dadka inta aysan dilin waxay sameeyaan sidaan ognahay cabsigelin iyo waxyaabo noocaas marka isagu fariimo ma ka helay iyo wax ay ku ugaarsanayaan ma telefoon bay u soo diri jireen waa gartay telefoonka ay u soo diri jireen wuxuu ka galay ma ahane wuxuu ka shaqayn jiray nabadda iyo dadka isku imaatinkiisa iyo beeluhu markay isku dhacaan isku keenidooda iyo heshiisiintooda waxaas uu keenay buu ka hadli jiray taasaa la diidanaa waa lagu dilay ilaahay ha u naxariisto anigana markii dambe 9 xabadood baa igu dhacday sababta ugu ugaarsanayay maxay aniga hadda nin walaalkii la dilay buu ahaa waxaan raadinaya anigu xogtii walaalkay Cabdicasiis Bilaan la kulanay waan la hadlay nimanka xogtoodii iyo magacyadoodii iyo telefoonnadoodii baan ka helnay biliiskii baa sidaa ku raadiyay aniguna waa kala shaqeeyay waa ka ilaa nin wax ka maqan yihiin baa waa sax fariiman ku soo diray oo كورنتان وركا الوصول فريمة ثلاثة أنا ما هنا أنا قلت أنا كورها لكن أنا إلى حمد جيس نك حبضها يقول لمن حبضها يقول في لبن بيعاين أنا